بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ولا ليال مركز الجوكتان وحان نقول سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله. وحان جعلها مانتا إن كهدلو موضوع عصب وكساب سن دعدي وينيد دعدي تضبدي جانفيي labada kun iyo shan iyo toban amba toddobadii January maalintii arbacadii ee ka dhacday magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska ee gacan ku dhiglayaal ay u geysteen dad ka shaqeynaya journalka Charlie Hebdo oo halkaas ay ku geeriyoodeen dad ka fara badan 12 qof oo isugu jiray dad journalka wax ku qorayay iyo askar arintaas oo lagu eedeeyay islaamka qaarkood dadka ay ku eedeeyeen inuu dambiga iska leeyahay islaamka ama nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. marka arintaas baan jeclaaday maanta inaan ka hadlo. walaalayaal waxaan jeclahay mowduuca inaan ka eego saddex jaanib amba saddex dhan inaan ka eego saddex dhinaca ugu horeeya waxa weeye reer galbeedka amba qarbiga oo ay ku jiraan wadanada Yurub gaar ahaan Faransiisku iyo islaamka iyo dadka muslimiinta ee Yurub degan amba islaamka guud ahaan waxay ku jiraan dagaal oo shock ba ka dhaxeeya sidaan mise waxa ka dhaxeeya wada noolaasho iyo xiwaar. arinta inaan su'aal iska weydiiyay jecelahay. arinta labaad ee jecelahay inaan ka hadlo waxa weeye mowduuc ku saabsan argagixisanimada ayaa ka mas'uula. maxayse maanta walaal u noqdeen islaamka iyo argagixisada? ma islaamka argagixisada abuura ma muslimiinta keena mise asbaabo kale ayaa abuura argagixisada? arintaana waxaan jecelahay inaan ka hadlo. haddii ay caawa inoo horgeli weydo mowduucan saddex xalaqo ayaan ka qaban doonaa, mar labaad baad maqli doontaan. arinta saddexaad aan jecelahay inaan ka hadlo waxa weeye mustaqbalka cilaaqaadka xiriirka inay yeeshaan muslimiinta iyo reer galbeedku sida ugu wanaagsan sidee tahay. sidee baan mustaqbalka xiriirka reer galbeedka iyo muslimiintu uu noqon doonaa mustaqbalka soo socda annagoo ka dhaqaaqi doona lektiiro iyo qiraa'aad scientific oo cilmiya oo ay sameeyeen dad muslimiina iyo dad reer galbeeda oo labada dhinacba ka tirsan oo laakiin dhexdhexaada oo ahayn labada dhanba kuwa dhinaca xagjirayaasha aan ku jirin. marka waxaan jecelahay inta aanan labada su'aalood ee dambe ay noo dambeeyaan su'aashii ugu horeysay iyaan ka jawaabeynaa. waxaan ka jawaabeynaa reer galbeedka oo Faransiisku lafdhabar ka yahay iyo muslimiinta cilaaqada xiriirka maanta jiray waa sidee? ma xiriir isku dhacba mise waa xiriir walaaltinimo? maxaa keensaday haddii la isku dhacana isku dhaca, haddii la walaaloobi lahaana maxaa keensanaya in la walaaloobo oo la wada noolaado? arintaas si aan u eegno walaalayaal, horta waxaan ka dhaqaaqaynaa wadanada reer Yurub ee reer galbeedka waxaa ka jira saddex fikradood oo muslimiinta laga kala qabo. saddexdaa fikradood inaan si fiican u etiidiyeyno u daraasayno ayaa lagaba maarmaana. muslimiintana waxaa ka jira saddex madrasadood amba saddex iskool amba saddex aragti oo iyaduna reer galbeedka ku wajahan oo iyaduna kala duwan. marka aan ka sheekayna reer galbeed quraate ma jiro, muslimiin quraatana ma jiraan, ee waxaa jira aragtiyaal islaamo oo kala duwan oo ku wajahan reer galbeedka, iyo waxaa jira aragtiyaal reer galbeed oo kala duwan oo ku wajahan muslimiinta. marka sidaa daraadeed waxaa laga maarmaana inaan isha ku hayno saddex buug oo muhiim ah oo soo baxay waqtiga cusub. waxaa ugu muhiimsan kitaabka la yiraahdo al-gharb wal-islam, islaamka iyo reer galbeedka, oo uu qoray ninka la yiraahdo Anthony Black oo macalinka jaamacad ku taala Scotland dalka Ingiriiska. waxaa kale oo muhiim ah inaan hayno kitaab la yiraahdo ad-din wa siyasa fi America, diinta iyo politika Mareykanka dhexdiisa. waxaa qoray nin la yiraahdo Mohammed Azif Zakallah. isaguna waa buug aad u muhiim ah oo in la akhriyo lafdhabarka ah mowduuciina si aan u fahmi karno xiriirka reer galbeedka iyo muslimiinta. waxaa kaloo jira kitaab isaguna muhiim ah oo qoray la yiraahdo
أوليفيه أو لرهضو العلمانية في مواجهة الإسلام لايسيتيجي أو هرجوجا إسلامك أما إسلامك هي لايسيتيجا مركا صدح ذا كتاب وأنا أركي إني يهين صدح بوغ وآدو مهمة هذه لو قدر لها نكر على الرفيق عبد السلام وزير كلمة الدبدة كأهانجر دالك تونس مرحلة دي النهضة أي مدحة كأهيد ودكاس أو مقال كقري جورنال كصوبها يوروب أو المجلة الأوروبية أو هذا يسجن الدين والسياسة دين تي بوليتيكا في الغرب قلبتك إسلامك ما هو كهذا الدين تا iyo siyaasaddu xiriirka ay ku leedahay wadannada reer galbeedka marka hadaan mawduuca sida aan uga dhaqaaqo muqaddimadiisu afarta kitaab ay muhiim yihiin waxa kale oo aad isha inaan ku hayna aayado quraan oo ilaahay kitaabkiisa uu ku sheegay subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu ina baray marka aan ka hadlayno mawduuc inaan saddex arrimood ilaalino kow inaan ilaalino cadaaladda markaad mawduuc ka hadlaysid cadaaladda ilaali حتى قفك أتجهد ليسيد عدو جاجه هدوية هي عدالة فل وحو الصح يهينا الشاك وحو خلطك يهينا الشاك عدو جرا واحد الصح كنت هاي الشاك واحد خلطنت هينا الشاك موضوع العدل بعد في التناول قضية هذا كهل ليسيد سي إنصاف وواضح سيد حب نما حق جرني ماذا إسكا إلهي وحوري ولا يجرمنكم شنآن قوم إلهي وحوري ولا يجرمنكم إننا إنه قادين عدو تنما أدقلوا هيسان على أن لا تعدلوا إن العدالة في الويدان هذا نعيس القف عدالة دي ساها كتجن اعدلوا إلى العدالة فلا هو أقرب للتقوى تابع إلهي إني دوانيسا سبحانه وتعالى أيضا القرآن في وحي نبريسا إن إلى لنوع عدالة مركان كهالينا موضوع أنا واحد الله سي أوبجكتيفا سي موضوعية سي دبرة إن نوجه لين سي حق جرنما إن عندنا عن الجرين محايا الإسلام كوه كور جيدا إن بدي نقطيد أما بدي نقطيد لحد الجوج مليئة الجوج هذه الجار مركان تاسي وتكوباد وين أرنت الله بعد إسلام كوه إن بريا مركان كهالينا قضية ده السمو أذق إن ضدك إسكود الدرين إن أورن وارجالد ووضحيين إن أورن فرانسيسكو وعدو سو أدني هبة إن أورن مسلمين ووضفيعيين إن أورن أنك وحنا هيدك إلهي دورت خير أمة هذا الله إسكام مطلقة أبسولية فرن قرآنكم مجعله قرآنكم حجعلي هذا الله حرام مقيد كه إلهنا يا واحد النسبية ذا قرآنكم وحوري سوى كهلا يا غلطة ما كل شيء إسلام كيو يهود النبي جزدريا إلهي وحوري ليسوا سواء ورجع هيسان مصنع من أهل الكتاب وحاكم أهل الكتاب هو إلهي جعل وصقد حسرك يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون marka ilaahay wuxuu qiray inay jiraan ahlul kitaabka dad wanaagsan ku jiraan dad xun ay jiraan marka min ahlil kitaab ilaahay aayadkan ilaahay wuxuu ku yiri wa min ahlil kitaabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilayk illa ma dumta alayhi qa'ima ilaahay wuxuu yiri dadka waxa kamid ah haysiin ahlul kitaabka kuwa hadaad kan taala dahab aad ama haysid ku kaanaya iyo kuwa waxa jira hal dinar haday ka qaataan aan ku keenin marka dadna way fiican yihiin dadna way xun yihiin an-nisbiyya marka taasina waxay kamid tahay sida wax loo eego tacmiimka wax kastiba la caam yeelayo ee dadka la isku darayo kabiya xaalka la israacinayo waa hadalka dadka jaahiliinta ah ee mutakhalifiinta ah dhinaca saqaafada iyo fikriga iyo cilmiga laakiin qofku markuu aqoon leeyahay dadka uu kala miisaamaya uu kala reebaya uu kala habeynaya arinta saddexaad ee iyadna muhiimka ah waxa weeye haddii lagu khaldamo maxaa la yeelay islaamku uu qoray مثلا waxaa kamid ahaa dhaqanka islaamka waxaa kamid ahaa in uu qofka muslimkii marka uu daaci yahay inuu aamino inuu qofka kala kula dhaqmo saqaafad la yiraahdo saqaafatul xiwaar qofka ka soo horjeeda waa la qanciyaa hatta hadduu isagu xadgudub uu sameeyo marna ma dhicin istuwarka iyo taariikhda islaamka marna ma dhicin maalin uu nabi maxamed ka nabad galay in la caayo sallallahu alayhi wa sallam annagu waxaan ka jecel lahay nafteena iyo maalkeena fidaaka يا رسول الله بأبي وأمي ويدي يا أباهي يا نفتي يا أبدك يا جبا وحنكو هدينا يا وكوفي دينا يا نرش النبي صلى الله عليه وسلم لكن تاسك مردقنا إن كل دقنا كوا النبي عيبين يا أخلاق كهو سيسا أخلاق ذي النبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحبر النبي صدقك ورنقمه وحكولي ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم إلهي وحولي كوا إلهي غيرك عابدية وحي عابدية عاينة
annaka waxaana la amray si aan u noqono dad civiliseya dad ilbixiina dad diskuurkoogu uu yahay mustawa xadaariya oo kor sarreeya oo ilaalinaya maaragtay intellectualnimadooda iyo cilmigooda iyo saqaafadooda ilaalinaya waxaana la amray inaan dadka diinahooga caayin qofku wuxuu doonaya caabudo buddhism ahaado hinduus ahaado siikha ahaado kristan ha noqdo juif ha noqdo yahuudi ha noqdo muslim ha noqdo ma caayana waxay caabudayaan maxaanu caayeen fayasubu allah yakuna ilaahay bay caayaan cadwan bigayri cilmin marka waxaana la amray inaan ixtiraamno al-aakhar qofka labaad laba diinteena waxaa ku jirta oo cajiiba inaan dadka la doodno ilaahay wuxuu yidhi wajaadilhum nabi muxamedow la dood gaalada qofka kaasoo horjeeda la dood laakiin maxaad kula doodi bilati hiya axsan sida ugu wanaagsan asaaliib cilmiga kula dood scientifiga kula dood si maaragtay mawduuci objectiifa kula dood si caqlaaniya oo logical ah kula dood si aad qofka qancinaysid maaha si aad qofka ka cadhaysiinaysid wajaadilhum bilati hiya axsan walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ilaa bilati hiya axsan ilaahay wuxuu leeyahay kula doodin ahlulkitaabka haddaad la doodaan kula dooda sida ugu wanaagsan marka sida ugu wanaagsan waxa weeye hadday jiraan laba usluub hadday ugu yeelaan usluub fiican iyo usluub xun waxaad qaadanaysaa systemka fiican si aad ula doodid qofka hadday jiraan mid fiican iyo mid sii fiican waxaad qaadanaysaa ka sii fiican hadduu jiro mid sii fiican uu mid kale kasii fiican yahay waxaad qaadanaysaa kasii fiican baad qaadanaysaa saabuu ilaahayna amrayaa subxaanahu wa tacaala marka aayadaha qur-aankii waxayna amreen waxaas bal wuxuu ilaahayna amray inaan laba shay ilaalino suuratu lkaafiruun ilaahay wuxuu yihi gaalada waxaa ku tidhahdaa nabi moxamed o laa acbudu maa tacbuduun la acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana caabidun maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbud lakum diinukum waliya diin culummadu waxay idhahdeen aayadda qur-aanka suuradan suuratu lkaafiruun waxaa ku jirta laba arrimood qimatu tamayus wa qimatu lxuriya waxaa ku jira qofka kale inaad ka duwan tahay inaad u sheegtid adiga elot muslimka iyo qofka kale ka kale iyo muslimka waa iska caadi waay waa naatiqeen nolosha caynkaasa adduunka ilaahay wuxuu yidhi isagaa u gartay inay dadku kala duwanaadaan sunnatu likhtilaaf inay dadku kala duwanaadaan waa sunna kawniya ilaahay baa abuuray subxaana wa taala ana kuma dowran inaan kala duwanano ilaahay baa jeclaaday wuxuu ilaahay jeclaada raalli baan ka nahay inay dadka qaar gaal noqdaan qaar islaam noqdaan inay dadka qaari maaragtay liberaaliyiin noqdaan qaar cilmaani noqdaan qaar islaamisti noqdaan qaar dadkaa doortay marka ilaahayna wuu jeclaaday saa subxana wa tacaala in la kala duwanaado laakiin wuxuu leeyahay kala duwanaanshihiina ha qarinina idantegaaga ha qarinin hawiyadaada sheeg laa acbudu maa tacbuduun waa idantegaagi wayaan walaa antum caabiduuna maa acbud waa idantegoogi wayaan waad u qiraysaa laakiin waxaa ka cajiibsan lakum diinukum waliya diin aniguna diin baan leehay inikuna diin baan leedihiin diinteeda iniguma qasbayo inikuna diintiina haygu qasbina laa ikraha fi ddiin diinta layskuma qasbo idan waa qima fi lxuriya xuriyadda meeshii ugu sarraysa weeye dhinaca kalena waa qima fi tamayus bilhuwiya waa kala duwanaashihiina way sheegaysaa hadihi suura cajiiba suuradda cajiibka idan markaan aayadaha ka dhaqaaqno suuraddaa ka dhaqaaqno dadka maanta ku nool muslimiintu waxaa odhanay waa saddexdaa maxay kala yihiin waxay kala yihiin qolo waxaan u bixiyey anigu waa qolada nuscada leh altafjiiriyuun aljihaadiyuun markay arkeen gaaladii oo islaamka qaarkood ay ku shidayaan nebigii oo la caayayo islaamkii oo la caayayo waxay qaateen solutionka ugu dhow muxuu yahay solutionka ugu dhow aan isqarxino adduunkan aan qarxino fawda diiniya aan abuurno adduunka dhanba ha isku shubmo gaaladoo markaa bay naga cabsooni saasay qaar qaateen waa muslimiinta ka mid yihiin sida qaacida sida wixii kale alqaacida wa akhawaatuha wala bixiyaan xarakada qaacidada iyo walaalaheed qolo kale waxay qaateen annusca alistislaamiya waxaan u bixiyey waxay leeyihiin fikir dhado isdhiib war meesha tani islaamna faa'iida male maaragtay nolosha lama soconaysee qoladan gaaladan han iskaga ekaano hanu ekaano khalaas waxay qabaan han wada aamino sidaa baan ku badbaadaynaa qolo kale saa bay idhahdeen qolada saddexaadina waxa weeyaan annusca alxadaariya war gaaladan iyo caalamkan aan ku noolnahay ilaahay baa ugu talagalay inay dadku ishirdiyaan kownka ilaahay wuxuu ku saleeyey tadaafuc inuu mid walba waa suuq adduunku waa suuq nin kasta fikradiisu soo bandhigayaa fikradaada soo bandhig isna uu soo bandhigayaa sidaan usoo bandhigaynaa nusca xadaariya xadaaradaan raacaynaa ilbaxnimadaan raacaynaa qoladaana waa qolo saddexaad markaa muslimiintu haddaad u fiirsatid adoona kala qayqaybin saddexdaa qole yihiin qolo islaamka ku bandhigayso xoog iyo faad iyo leed waana laga gardaraya lakin waan iska celinaynaa iyo qolo isdhiibtoo tiri war meel la mari ma jirtee hanu ekaana dadka istislaamiyuun qolada saddexaadna waxaan oranay waa qolada saddexaadina waa qoladaan u bixinay annusca alxadaariya dhinaca kale reer galbeedku
iyakuna saddex qolo weeyaan oo iyakuna la mid ah waxaa jirta fikra sidaamiya fikradaada war muslimiintu way soo socdaan khatar bay nagu hayaan waa quwad dimuqraafi ah waa quwad siyaasadeed oo soo socota si aan dib uga dhigno waa inaan iyaka la dagaalano dagaal cad baa lagu hayaa marka qoladaa waxaa la dhahdaa gaalada dhexdooda assidaamiyuun baa dhahdaa way jiraan reer galbeedka waxaa ka mid a ninkii la oran jiray maaragtay fokayama ka mid a iyo kuwo kaleeto fara badan oo aaminsan war muslimiinta waa inaan cagta hoos gelino qaar baasaa rumaysan way jiraan qaaro kalea jirta oo reer galbeedka ku nool oo iyaku aaminsan wax la idhaahdo war dadkan han aantagarayno oo si siyaasada han u wada seexino oo maaragtay iyakoo hurda civilisation occidentalkaas kasoo wada galaan iyakoo bilaa idintay hays arkaan waxaa dhahdaa kuwaasna waxaa dhahdaa al-adkiya algharbiyuun waa dadka intelligentka reer galbeedka iyo saas u fikiraya laakiin waxaa jira qolo saddexaad oo iyakuna aan u bixiy anigu altafaaciliyuun algharbiyuun kuwa reer galbeedka ku nool ee leh war xadaarada muslimiintu wax weyn baa ku maqan waa dadkii khawaarismi keenay waa dadkii ibnu siina keenay waa dadkii ibnu nafiis keenay waa dadkii ibnu taymiye keenay waa dadkii ibnu rushdu keenay waa dadkii zeroga soo biiriyey waa dadkii sameeyey ilbaxnimada weyn ee islaamka ee reer galbeedku maanta uu dhaxlay waxaasoo dhan dadkii sameeyey weeyaan dad caadiya maaha civilisation caadiya maaha hala tafaaculno xiwaar han la galla xiwaarulxadaaraat kuwaasina reer galbeedka way jiraan france bay fadhiyaan ingiriiskay fadhiyaan talyaanigay fadhiyaan jarmalkay fadhiyaan maraykankay fadhiyaan maxaa laakiin jira labadan qoladan muslimiinta ah ee si xadaarada u dagaalamaysa iyo qoladan reer galbeedka ee si tafaaculiyo xadaariya u dagaalamaysa hal la isfahmo leh labadaa qolo codkooga hoos buu yaalla iminka dadka caqliga leh badi dadkuma maqlaan maxaa la maqlaa labada qolo ee qacbaadaysa qolana madfucoogaan maqlaynaa iyo qaraxooga qolana waxaan ka maqlaynaa iclaamka iyo warbaahinta iyo masmediyaaga iyo waxaa shicbigu iska dhegaysanaya masaakiinta iyaad ka maqlaysaa iyagoo nebiga sawiraya iyagoo adeecadaha ka dagaalamaya iyagoo islaamka inaga ilaaliyaya qolada reer galbeedka qolada kaleetana iyagoo wax qarxinaya oo le labadaa qola is hayso oon arkayna waxaa markaa maqan qoladii saddexaad dariiqu salis dariiqii saddexaad dariiqii wasadiyada ahayd kuwaas baan ayaa maqan dadkii caqliga lahaa ee mufakiriinta ahaa ee maaragtay ku fikirayay si xadaariya ayaa maqan wayna jiraan laakiin codkooga lama maqlayo way badan yihiin laakiin dadku ma arkayaan xikmadda halkaa ku jirta labada dhinacba marka labadaa qolo maxay rumaysan yihiin sidee nolosha u arkayaan halkeebaa wax laga bilaabi doonaa irhaabka ayaa u sababa halkuu ka yimiday marka uu yimiday iyaa irhaabi la idhaahdaa irhaabku marka la sheegayo iyaa farta lagu fiiqaa sidee farta loogu fiiqi karayaa waxaasoo dhan xalaqada soo socota iyaan kusoo qaadi doonaa insha allahu tacaala sidaas baan isku ogaanaynaa arrinta aanu ka hadlayno arrin yaroo caadi a maaha arrin yaroo degdeg lagu dhaafa maaha arrin yaroo maaragtay ku dhacday joornaal maaha waa arrin weyn oo dhex taalla laba ummadood oo waaweyn ummadda reer galbeedku waa ummad weyn waa 2 milyaar oo bini aadan ah civilisation modernega gacanta ku hayaan ummadda muslimiintuna waa ummad weyn waa ummad civilisation soo samaysay kartina u leh inay mar laba civilisation samayso waa ummadda weyn ee taariikhiga ah ee shaahidka ah ee ilaahay khayr umma yiri labada ummadood ummadii uu nabigu yiri taquumu saaca waruumu aksaru nnaas qiyaamuhu wuxuu kici doonaa xadiiska muslim baa wariyay roomaagu adduunka ugu badan romaaguna waa eurobiyaanka waa amerikaanka waa kanadiyaaga iyo ummadii ilaahay khayra umma waa labada ummadood anigu waxaan u arkayaa ilbaxnimada xaqiiqiga ah labada ummadood ee sida waxaan waafaqsanahay ragga yidhaahda labada xadaaradood ha sheekaystaan badbaadada nolosha ku jirta seen u abuurnaa kilima iyo munaakh iyo environnement ka wanaagsan environnemada maanta lagu nool yahay ee daacish keenay ee qaacida keenay ee argagaxa keenay ee cabsida keenay maaragtay argagixii masar ka dhacay 60,000 qof lagu dilay siisi oo kale noo keenaya amba qadaafi oo kale noo keenaya amba dadka la midka ah ee wadanadeena ku nool ee dadka afka cumburinaya ee qarxinaya markaa waaqaca waxaas oo dhan iska baabiina waa inoo muxaadarada dambe inaan isdaafin. Assalaamu calaykum waraxmatullah.